maanta ugu doorneed wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa si qarsoodi ah wuxuu ku soo galay Somaliland wuxuu tagay Berbera wuxuu soo fiirsaday boos ku habboon military base kaasoo hadhooti ay ka duqeyn karaan wadamada dariska ah sidoo kalena ciidankooda meesha ay u digi karaan waa Afrika markii ugu horeysay qayb ka mid ah Afrika in ay Israa'iil damacdo ay rabteen soo degto waana wax halis ku ah Afrika oo dhan sidoo kalena dalalka Islaamka maxaa la gudboon dadka Somaliland sidoo kalena اعترافكي ما وحى لو قضي إن دول السيو بيس للسيو سيزو كلام هادوتي لسود جيو ريال فلسطين أو دول كود لقى قاتي جوريو هذا لقى قاتي مال عاد وجدان ميال ربعين لسود جيو مدحينا سومالا سيزو كل وحوش صحيحة إبراهيم كورتس وحلا ده وديمها سدح ده أهل مدينايو دين الإسلام كان الهوس جينا يديمها كري تاسو قالد وين أيتهاي دين الإسلام كودين تكلية حقه شيوخ دي كهذا شيء ولا حري ninkan oo kalena waa la dhageysana oo qabiir iska dhigay oo ka sheekeynaya Abraham Courts waxba ku saabsan yahay shiiqi faahfaahiyay sidoo kale la fadhiistay madaxweynaha Cirro waa la xiray marka shuyuuqdiina waa la xiraa dadka isku sheegaya qabiirka ee beenta faafinaya oo sidoo kale dadka u sheegaya waxba aan jirin na waa la dhageysana meeshaas waxa ka cad in la rabo diintana in lagu xadgudbo qalaadka dhacmaalada u jeednay waxba ay sameeyay dadka shacabka markay dabaaldegayeen diintana loo gafayo oo qalad weyn ahayd xataa wax la arkay عنك Somaliland أو توحيد كقرين هاي نيهودية أو كقر سعودة تاسو أهيد عجيب وحلا ليا أبو سيدا إنه يسعن إنه بعاد معهن وحي صدر مالوت سردون اسكدي جاي ورباهين نيهين كدي ممكن لابتين وحي رمانة كشيء كي ماشي سوى ميل إبرة ميل يعني صحراء وأساس مهور مر سنة أنا وح أسمي كرنا هورمر كدي من ماشي سأين سودي كرنا أي دحين وحصو سعودة يوبيك يا وين إلهي أنك ما قال لي